labadii isbuuc ee la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ayaa sheegaysay in dadaal ugu jirto sidii ay dib gacanta ugu dhigi lahayd wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan kaasoo ay sheegeen inuu ka baxsaday xabsi lagu hayay. Dad badan waxay su'aal iska weydiinayeen sida ay u dhacday in Cabdirashiid uu ka baxo faraha dowladda federaalka. Cabdirashiid Janan oo warbaahinta la hadlin tan iyo markii uu ka tegay Muqdisho ayaa markii ugu horeysay warbaahinta uga waramay qaabkii uu suurto gashay inuu ka fakado xabsiga lagu ilaalinayay. sida horeba saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliya bulshada u sheegeen waan u mahadcelinayaa intii igala shaqeysay. dabcan hadda qofku kaligiis markuu shaqeynayo kaligiis wax ma qaban karo in lala shaqeeyo. dabcan dad unbaa ila shaqeeyey aan u mahadcelinayo shaqadii ila qabteen. horta barnaamijkaas waqti daba dheer iyo wuxuu u baahan yahay aragti fara badan biidnillahi tacaala. waxaana samayn doonaa xilli aan studio kusoo booqday inaan barnaamijkaas ummadda Soomaaliyeed si maqal iyo muuqaalba ah aan warbixin ooga siiyo dhammaystiran. laakiin barnaamijkaas wuu ii suurtagalay, ilaahay baana ii fududeeyey tabaaraka watacaala. anigana dee waxaan ahaa qof aaminsan in la dulmiyey oo dulmi lagu haysto. qofkana mar kasta oo la dulmiyo rabbi wuu leeyahay, rabbina waa u gargaarayaa. marka barnaamijkaas rabbi baa ii fududeeyey, ilaahay baan ku mahadinayaa tabaaraka watacaala. wayna ii suurta gashay inaan xabsigaas ka baxo ama afduubkaas igu haya gurigaas ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ay dhisteen ama ka baxo. kadibna 2 maalin iyo 3 maalin iyo 2 habeen aan ku sugnaado Muqdisho. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dadka ay rabaan in ay amnigooda ilaaliyaan oo ay magaaladaas caasimada ah oo maalin kasta dhibaatada ka dhacaysa wax ka qabtaan. anigaan Cabdirashiid oo siyaasi ah oo 100 calaamadood leh oo la raadinayay oo garoon iyo meel kasta oo gaadiid aan isticmaali karo oo ka baxayaba ciidamo la dhigay. 9 saac oo galabnimo ninka barnaamijka ii suurta gashay way inaan doon ka soo raaco meel ay ciidamada dowladda ay raadinayay ay joogaan. waxaan isleeyahay taas marka aniga Cabdirashiid qofka qaban waayo ama arki waayo cunug yar oo 20 jir ah ama 18 jir ah oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayo inuu waxba ka qaban karinna waa mid u muuqanaysa ummadda Soomaaliyeed. aan rabaa inaan u muujiyo aan cuni lahayna aniga nimankii ila socdayba waxay ahayd wax doonta noogu diyaarsanaa. ninbaa dalkiisa asagoo nabad oo wax dhib oo ku qabo usii jirin ka tahriibo oo dalal kale u tahriibo oo bad intaas 10 kilomitir aado oo wuxuu la kulmahayo aanan ka warramin markii uu baddaas hadduu lacag ka badbaado. anigu nin aad xaqiiqadan wuxuu loola dhaqmay baan ahaa. Muqdishona waxay ii jirtay 500 kilomitir. badda inaan ka badbaado iyo meeshii aan marayana rabbi aniga oo 120 casho urkooda ku jirto rabbi ii qoray oo wixii ugu dhacay inaan marnaba gafaynin qof muslim oo aqoon lahaan ahayo waan aaminsanaa in marka aan go'aankaas qaato waxa si ah oo riski ah oo ma arkaynin inaan badda maro. taasna waxay ahayd mid xorriyadiida iyo xaqiiqiyan dhibaatada markaas igu hayay aan islaahay. isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu warbaahinta u sheegay inuu xaafado caadi ah lagu hayay intii uu ku jiray gacanta ciidamada dowladda federaalka ama aan leeyahay. markii la qabtay garoonka laga qabtay waxa ay qabtay niman booliis ah oo askar ah iyo niman dharcad oo isla socdo oo ninka dharcadka uu amrayo ciidanka. laakiin aan fahmi karay ciidanka dowladda inay yihiin cid kale hadda meesha soo geli karana aysan jirin. kadib waxaa la geeyay xaafad aad u fog oo dabcan kadamba aan gadaal ka fahmay inay degmada Hurwaay ee magaalada Muqdisho oo area dowladda ay kontrolsho iyo area dowladda inta badan mas'uuliyiintiisa ay tagaanba aysan ahayn. waxaana lagu rajiyay niman dharcad ah qabo, laakiin dib aan ka fahmay haddana inay boolis yihiin gobolka qaybta gobolka Banaadir ka tirsan oo Jaran Saadadoon oo xukumo. muddadii marka aniga 5 bilood oo la hayay maalinba waxaa la geynayay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii ay keenay xaafadda shubisku kamid ah. intii muddo oo 7 casho aan ku sugnaa. inta kalena waxaa la igu hayay xaafadda Hurwaay gudiga kamid ah oo dad shacabka Soomaaliyeed si bareefad ay u dhisteen. aniga iyo niman askar oo 12 nin ah baa meeshaas ayada inta badan bay ahayd muddo meesha la igu hayay ma ahan xabsi dowladeed iyo xarun dowladeed midnana. qaabkii la dhaqmay haddii aan ku sheego xaqiiqan askartii haysay waxa xumaan ah oo ka baxsan awaamir la siiyo oo ay fulinayeen oo shakhsiyan ay ugu sameeyeen ma jirin. laakiin xumaan fara badan oo awaamir ah oo askartaas ku socoto oo inay fuliyaan. Cabdirashiid Xasan Janan ayaa dhanka kale faahfaahiyay sababihii loo sheegay in loo xiray. 19 casho xirnaba waxaa ii yimid General Saadadoon wuxuu ugu yiri wasiir waxaad ku xiran tahay ciidamo gaba jooga oo 1000 askari ah inaad wareejiso dowladda ku wareejisid. baan loo baahan yahay saasay madaxda qaranka ku leeyihiin. yaa ila baan ku yiri markii dambe wuxuu yiri madaxda ku madaxweynaha iyo waxa ku la taliyaha nusubda wuxuu yiri waxa wanaagsan
aniga maxaabiis baan ahay mana ahan ciidanku shaatigaas intaan gacanta ku taagay kastabaan saarnaa waan ku yidhi shaatigaas kastabaan ka saaran warqad jeedkiisa ku jirta ma ahan waxa laygala hadlaya waa ciidan bini-aadan ah anigana hadda maxaabiis baan ahay qofka aan telefoonka aan u dirayana su-aasha koowaad uu weydiinaya waxa waye aniga waxaan ku suganahay taas marka waxaa ka haboon su-aashii lagu soo dhiibo madaxweynaha uu kuusoo dhiibay iyo taliyaha nabadsugudu anigoo xor ah oo degan xorriyadiida u degan ama hotel ama xarun dowladeed u degan saahatee dowladda Soomaaliya ayaa hore u beenaysay in arrimo siyaasadeed loo xiray janan laakiin waxay shaacisay in loo haystay eedeymo ku saabsan tacaddi bini'aadnimo Cabdirashiid Janan ayaa ka gaabsaday inuu si cad u sheego magacyada dadkii garabka ku siiyay inuu baxsado wuxuu si kooban u sheegay inay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda gacan ka siiyeen inuu baxsado dhinaca kalena wuxuu beeniyay warar sheegayay in diyaarad militariya oo ay leedahay dowladda Kenya lagu geeyay magaalada Nairobi wuxuu sheegay inuu hadda ku sugan yahay Buulaxaawo qorsheynayo inuu qabto degmooyin ka tirsan gobolka Gedo dadaal ku saabsan dib u soo qabashada Cabdirashiid Janan hay'adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Kenya ka dalbatay inay xirto Cabdirashiid Janan kadibna ku wareejiso dowladda federaalka Soomaaliya Amnesty ayaa sheegtay in Janan uu ku eedeysan yahay xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqul insaanka